ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتا قيمها يقايها بدن كسو دوادا ترتن رمضانات صومالي كان ugu culus internetka ku jiro. tartanku waa tartan habeen la ah oo bishan Ramadan inta lagu jira dhan noo socon doono insha Allah. 5 xujo iyo hal su'aal oo dheeraad ah oo kala faa'iideysi ah ayuu tartanku ka kooban yahay. qofkii jawaabaha saxda ah haya jawaabaha iyo magaciisa iyo dalka uu joogo hoos ha ku soo qoro. qaybta xigta ee berita soo gali doonto ayaan ku sheegi doonaa magacyada dadka furay xujooyinkaas iyo dalalka ay kala joogaan insha Allah. sidoo kale kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe dheh fadlan, waadna mahadsan tahay. su'aasha koowaad, waxaad sheegtaa wax lugihiisu ay dhulka yaalaan madaxiisuna uu xidigaha ka sareeyo. su'aasha labaad, waxaad sheegtaa wax si walbo aad biyo ugu shubto ama u qoyso aanan qoyaan marnaba noqonayn. su'aasha saddexaad, waxaad sheegtaa wadamada dunida kuwooda ugu caansan ka mid ah oo magaca ay shacabkiisu u yaqaanaan haddii la fasiro uu noqonayo boqortooyadii dhexe ama imbraadoriyadii dhexe. su'aasha afaraad, ma u bannaan tahay ninka ragga ah inuu guursado xaaskiisa asayda u sido eedadeed gabadha ay dhashay. su'aasha shanaad, sheeg wax jirka bini'aadamka ku yaalo oo af Soomaali ahaan haddii 3 xaraf ee ugu horeyso laga soo qaado noqonayo wax bini'aadamka iyo xayawaanaadkaba dili kara. macnaha waa wax jirka bini'aadamka ku yaalo oo af Soomaali ahaan markii loo aqriyo 3 xaraf ee ugu horeyso markii laga qaado waxaasi 3 xaraf ka kooban noqonayo wax bini'aadamka iyo xayawaanaadkaba dili kara. su'aasha dheeraadka ah ee kala faa'iideysiga ahna waa sheeg magaca hal barnaamij oo uu qofku telefoonkiisa ku soo degsan karo kaasoo uu qofku wixii nood ah ama inuusan hilmaamin uu raba dhan uu ku qoran karo amaba xataa cod ahaan uu xasuusintaasi ugu duuban karo sawiro iyo wixii la mid ahna raacsiin karo. qaybta koowaad ee tartankeena intaas ayay ku eg tahay. wixii jawaabo sax ah ee aad haysid hoos ku soo qor magacaaga iyo dalka aad joogtidna soo raaci. insha Allah berito ayaan qaybta labaad ee tan xigta ku sheegi doonaa dadka jawaabaha saxda ah bixiyay, magacyadooda iyo meelaha ay kala joogaan. kanaalka haddii aad ku cusub tahayna subscribe dheh, soona dhawaaw. dhammaantiin khayr badan iyo Ramadaan suuban ayaan idin wada rajaynayaa. waa Axmed Kadiye oo idin wada salaamayo. ciao.